gudidii uu kala dab qaadaysay xukuumadda iyo jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Caare ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ku guuleysteen inay ciidankii u watay Korneyl Caare ay ka soo saaraan goobihii fadhiisimada ciidanka oo ahaa wariyaha TV-ga caalamiga ee Bulsha TV oo ku sugan magaalada Ceerigaabo ayaa waxa uu soo sheegayaa in gudidaasi ay saaka ciidankii u watay Korneyl Caare ay ka soo saareen buuraha gobolka Sanaag waxaana uu yiri Tiglan wararka ugu dambeeyay jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Caare oo muddooyinka ugu dambeeyay ku sugnayd buurta Tabca ayaa saaka subaxnimadii hore oo ka soo baxday buurtii waxa gaaray saakadii hore magaalada Karin ee afafka buurta Tabca laga dhaw mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag uu hogaaminayo barasaabka iyo sidoo kale guddiga dhexdhexaadintooda hadallada jabhadda uu hogaaminayo Korneyl Caare iyo xukuumadda Soomaaliland oo muddooyinka ku sugnaa gobolka Sanaag wadahadal dheer waxa la isku afkartay in jabhadda Korneyl Caare ay ka soo baxdo buurta isla markaasina ay soo gasho buurta Daalo kaamka buurta Daalo halkaas oo lagu hadlayo isla markaana ay ku hadlayaan jabhadda iyo guddidu waxa la filayaa maalmaha soo socda fooda lagu soo haya in jabhadda hogaaminayo Korneyl Caare ay hubka ku wareejiso iyo ciidankaba guddida wadahadallada u dhaxeeya jabhadda iyo xukuumadda guddiduna ay ku sii wareejiso xukuumadda Soomaaliland isla markaasina lagu qarameeyo ciidamada Korneyl Caare halkaasi ayaa la filayaa toddobaadada soo socda in barxad marka ma ciidamadii Caare ee ku sugnaa buuraha gobolka Sanaag ayaa buurii ka soo baxay baad leedahay ciidamadii waa soo wada baxeen ciidamadii iyo gaadiidkoodii iyo hubkoodii gabaanba way soo baxeen waxayna yimaadeen magaalada Karin oo Daalo ku dhow waxayna tageen kaamka Daalo meel la yaado halkaas baa la doonayaa in lagu qameeyo maalmaha soo socda insha Allah bidniga Karin in markaa ma ciidankii oo dhan baa la qalameynaya mise qaar baa laga tagayaa ciidankiina la qalameeyo gabaanba